بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد بداية الله سبحانه وتعالى ما هذه سكالة أولا وآخرا ثانيا وحمدونا إن شاء الله تعالى إن كلمتك إلى هذا صرف كالعجها قلاد إيه أونلاين كإلو يقانو فوركس سأل الله سبحانه وتعالى يقدم به وحادي اللغة هذا لقي forexiska oo ah sarif lacaga qalaad oo markaas lagu sameeyo online ahaan laga yaabo gurigaaga jooga ama xafiiskaaga jooga ama shaarica marayaba kaliya inaad haysatid aaladan ku fuudeynaysa adduunku horumarka uu gaaray ay taasi kamid tahay waxa soo ziyaaday waxa weeye aqwaasha culimada Soomaaliya maalmahan ugu dambeeyay aad iyo qadiyadan uga hadlay waa waajibka Ilaahay subhanahu wa ta'ala saaray inay cadeeyaan xaqa cadeeyaan umada u kala cadeeyaan shayga xaaraanta iyo shayga xalaasha ah way ku mahadsan jazakumullahu khayran meel kasta ay joogaan saad arkayseen si guud oo wadar ah iyo si kali ah ay culimadu qadiyadan uga hadleen balse waxa la oran karaa way ku kala aragti duwanaayeen culimo Soomaaliyeed oo tiri forakisku waa xalaal iyaguna waa jiraan kuwa diiday oo yiri waa xaraamna way jiraan mid walbaana inta uu ka fahmay qadiyadan ayuu isaguna ugu qancay umadana ugu gudbiyay asalku waxa weeyaan tahliilka iyo tahriimka ilaah baa iskala jalla jalaaluhu xaraam weeye bal khatiir weeye shay ilaahay subhanahu wa ta'ala xaraam timeeyay in si sahal ah oo qofku ku xalaal timeeyo oo yiraahdo waa xalaal ama shay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo xalaaleeyay qofku inuu diido yiraahdo waa xaraam khatarteeda leedahay كو اسكتور يا تحليلك يا تحريمك الله سبحانه وتعالى وأجودي ربي وحليه جل جلاله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم كو اسكتور يا ربي سبحانه وتعالى محوكة المامي إن إلهي كو بين أورنا كو إله كو بين أورتنا ربي وحليه ملي بانان العلماء واجب كلا يساروا حق إن عديان وورثة الأنبياء أنبياء وحلا صادرين وحي هاي الأمة إن حق يباطل كأكل صارا إن وحصل لقى مرمرة مفتيجة أم حاكمكم مفتيجة مركو فتوى صوص مسألة كصوصاري أم حاكمكم مركو مسألة حكومة ياي لقى مرمى وحا أهل بشرتي لما فهم سيدة ولي من القيم رحمة الله عليه ميدو حوي فهم الواقع shaygan uu rabo inuu fatwada ka soo saaro ama shaygan uu rabo xukunka inuu ka soo saaro horta inuu fahansan yahay oo waliba tasawur dhameystiran suurad dhameystiran inuu ka haysto talabaadna waxa weeye waa fahmul waajib oo ah xukunka sharciga ee uu leeyahay shaygaasi markaas inuu ogaado ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi wuxuu leeyahay wa min alqawaa'id alma'rufa almuqarrara 'inda ahli alilm alhukmu 'ala ash-shay far'un 'an tasawwurihi وقاعدة مقررة ومعروف ولا يقان أو لبا أصل كذا يا كتاب الله سبحانه وتعالى فلا تحكم على شيء إلا بعد أن تتصوره تصورا تاما حتى يكون الحكم مطابقا للواقع وإلا حصل خلل كبير جدا ساسولي وحلقة مرمانا مركا أما جروبها هاتو علماء أما فردها هذا عالم أهم هديب الشيء حكم لقصو صاري أما فتوى لقصو صاري هاي لقما مرمان وحاء شيء قاس إن سعد لو يقانو تصور دميسترنا إن لقايستو أن قضية البعض وحوية الأصل في المعاملات والبيوع الإباحة معاملاتك هي بيوع أصل كود وحوية إن أي بنات شيء بنانا قفك حرام تمين الدليل بلغرها شيء أصل كيسو بناني هاي قفك يرى هذا حرام ويميل بوحة كسوقش حرام أما حرام وي دليل بلغرها شيء أصل كيسو حرام يقفك حلال الحلال نسجد دليل لغرها تاصل ميدوي مركز وصل نقول قضية فرقسك واحد مدة إن حتى علماء مركز كهذا الجانب كعلماء ديدا ورنتي إن بدن أن عرب يصومالي بقى أن أدو لجيستي أيجو نفتي جوضو أحضروا إسكوسين يسوف هالسنين وقاركود بأي كجوابيا أن أرين أن حبيراتي وعلاقة أهل لهين فرقسك تا أنت أنا كان محاربة إن عديو
culummadu iskuma waafaqin Soomaaliyeed dhammaantood iskuma waafaqsana kuwa diidan iyo kuwa ogolay in forexiska ay ku jirto ribo iskuma waafaqsana kuwa diidan waxay leeyihiin riba ku jirta laakiin waxaan arkay dad u dhigaya culumadii ayaa waxay baneeyeen kuwa ogolan iyagoo markaas hujuumaya kuwa ogolaaday mucaamalo ribawi horta sug marka hore inay ribo way diidan yihiin iyagu inay meesha ribo ku jirtee adigu sug marka hore oo ku dood waxaad tiraahdaa tan iyo tanaa daliil u ah markuu kula ogolaado oo yidhahdo waa runtaa tan waa ribo weeye noocyadeedii mid ka mid a ribaday soo gashay laakiin way bannaan tahay markaasuu qofku wuxuu leeyahay ceebeen iyo dhaliil laakiin inta ka horeysaay ribo kuma jirto oo waa xalaal waxaani iyo riba ku jirta ee waa xaraam ayay culimmadu taagan yihiin cadadku muhiim ma ah dhankee loo badan yahay muhiim ma ah shaygu waa xukum ilaahi subxaana wa tacaala dhankiisa ka yimi wa baa lagu caddaynaya adila lagu caddaynaya ciddii markaas ilaahi subxana wa tacaala waafajiyo oo adiladii uu caddeeyo ciddaas ilaahi subxaana wa tacaala waafajiyey hadday noqoto xataa tiro qadiyadu maadaama mas'alo diineed ay tahay Soomaali gaar kuma ah carabta nooga horreysay noogana badan bal baxthi ku sameeyo oo baara YouTube ka gala culimo waaweyn ayaa qadiyadan ka hadlaysa qaar baa ogol qaar baa diidan bal tiradu isku fiiri marka iyaduna mashaad baa culimada diidani ma laga tiro badan yahay arin iyadu muxuu ahaa taasna oo weyn ma aha قضية دينية وي بل أكثر يد الله سبحانه وتعالى مرك قارك ذا دليعي ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون لا يشكرون وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين مسألة دينية علمية على الله يا أبضن يعدد كيوي صح معها أن علماء مرك لا غريبة محل قد من شعبك وحنو قيبين لبا قضي لبا نبض لبا قيبت بنو قيبين يا شعبك mid waa dalabatul cilmi dan diinta garanaya ama cilmi la muxabaranaya ayagu inay baartaan culimadaasna ay weheshadaan aqwaashooda iyo hadalladooda iyo adiladooda ayaa la gudboon marka meeshii xaqo ay u arkaanna ay qaataan waana ku khasban yihiin maxaa yeelay adigoo arkaya shayga inuu xaraam yahay inaad sheekh kale ka qaadatid xaraam isagoo xalaaleeyay dambi waa maadaama aad adiladii u jeedid oo aad arkaysid shayga inuu xaraam yahay sheekh hebel baa igu yiri waa xalaal anna aqoonteedaan leeyahay inay xaraam tahay khatarteeda leh caamada waxaa iyaga la gudboonin maadaama aysan qadiyadii u kala baxsanayn kala saari karin tasawur fiican qadiyadii ka haysan xukunka sharcigan aysan garanaynin ayaguna marka culimada sheekh ay ku kalsoon yihiin oo diintiisa iyo aqoontiisa ay ku kalsoon yihiin inay qaataan fahamkiisa iyo fatwada uu soo saaray laakiin labada jaanib waxaa ka reeban kanna inuu kan aflagaadeeyo oo yiraahdo waa riba cune waa xaraan cune waa sida ummadii waxaan muxuu ahaa buu xaraam u baneeyay kuwii ku tacaamulayna uu caayo aflagaadeeyo kan kalena sidoo kale kuwii diiday inuu isaguna aflagaadeeyo maxaa yeelay qadiyadu waa qadiyad u khuduucaysa ijtihaad اجتهادكنا ليسكم عيبايو اجتهادكنا ليسكم عيبايو ان waxay la qurux badnaan lahayd runtii aniga qadiyada si meel loo dhigo saddex jaanib inay isku yimaadaan oo si toos ah uga hadlaan Allah wuxuu leeyahay fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun dadkii mucaamaladan wadanka keenay ee iyagu garanaya ee sharikaad kale ee ku soo shaqeeyay ee kuwa adduunka shirkada weyn adduunka jidda la soo shaqeeyay ee shaygan garanayay in loo diro bal inay baxthi soo sameeyaano shaygan sida uu yahay bilow A to Z inay dhinaan iriyaan oo culimada ay hor keenaan maxaa yeelay waxaan aaminsanahay oo dareensanahay in badan oo culimada kamid ah qadiyadan uma baxsana ma xukunkeeda sharciga laakiin qadiyadan markay ka hadlayaan iyagu umba kuwa diidan bal arkaysaa iyagoo laba dhinac u kala hadlaya mid baa waxa arkay dhahaya wadaad carbeed waxay arintan xaraam ku tahay markuu qabdi ka hadlay qabdi xaqiiqi ma dhicin oo yahay qabdi xaqiiqi meeshan ku jira yaa ku hor fadhiya oo wax ku siinaya adiga qabdi xaqiiqi intee ka yimid kii xukmiga ka muusan hadduu kaas ka hadla waxbay ahaan lahayn laakiin waa xaraam qabdi xaqiiqi ma dhicin
عدتي قبض حقيقية ماشي انت على مجيتو مركو قبضي كان لقاها ذا جانب كديدا قوني بين ندوات وهين وقبتين كوا أقولنا قوني بكسو هاللان يعني بنوني يروحوا الأحمر يا مركا هل طرف اسكو لنعه ولا يروح بعدين وعافي عن كان ديدا كان أقول كان يري حرام معاملة كان يري حلال معاملة أنت وفريستان بل مركو رأيني لجيستان كي معاملة ماشى كاني نفتي قل فاسألوا أهل الذكر وي قرني أقون أوله تصور إنك بحيان كوا شركة كاني إن بدنوا كم إذا واحد دينه مركي الحكومة قضية دان أو لها ربا حرام حكم كوحي لو جبنا يوادي دنا ما بلهم بيلا هاي نو شركات نقابك أو مش قيسة لها هاي إن وحكى له ريبا يذنا بس هذا إن لوجها اللقاب ديني دي وصح مسلمين بان هاي وحكى سو دينتنا خطر قلنا إن لقاها الله وصحوا لكن أفلقاد هذا يستهمكوا يدوا ريبا لما كان شركات كلها توجو أنا شركات عمليه كمشى قيسا ولي الله يمحوها وادو ما يجوه يسمحوها مقال كذا شغلكم مليه لكن توهم بان أركيا وولي يبان أورد حأركي يقول لي كي وضنك كاني شركة دان نكي أساسي ومدي بلعتي كأرصد وافق كذا وعرري حأركي هذا نسوي الله يقول هيا ورما عررين وشقيسنا يا بل برنجية كلام فريا وتهم واي افتراء واي كذب واي يسعابين واي تاسمه بنانا مركب waxaan aaminsanahay qadiyadan gacmo kale inay ku jiraan dagaal hoose laakiin wadaadadu waa lagu dhax dhuuntay fatwadii wadaadada iyo xukunkii diinta ahaa ee cadeynayeen qadiyadan waa lagu dhax dhuuntay ummada kale iyagu interestkooda wata ayaa ku dhax dhuuntay oo aflagaado kaas waa tuug shirkadan lacag bay xadaysa shirkadu waa shirkada jirtisan u jeedo shaqaynaysa amaanadeeda gooniha looga hadlo haddii cid wax dhacday gooniha loo sheego laakiin iftiraaga been abuuradka iyadoo ma fiicna يعني ودينيا نصيحة إجت هاي تاسي لبو إن لسوي ما نصير عشان الطرف كعلماء بالعدي ده سواء أرنتان حلالوي يكون ده أرنتان حراموي هي الشركة دي نفتي جاية كوا وشقة أما كان أقامت هذا لا أيجنا إلا ورثت لكن ده مركز بيان صار إيرادان أرنتان لو جدي أنا وما بليهم بقى يدنا محوها ما فينا مركز إن لسوي ماذا قضية لقاها الله هذه قضية الربا إنه قطع مسلمين تدمات اللي قد يقول هذا الربا وهي قف الربا كم الطعام ولا ما كوش قيستنا إله سبحانه وتعالى وكل إعلامية دجال اللي يرهدوا هذه حلال تهينا ومضى وح إله سبحانه وتعالى وحلالي ومعيشته دون كهليان أو أي المهضة كورسانيان أو نرشة يكون مرسانيان إن لا يهور استاجن مركز قضية إنه يسنقون شيخ صوته وحلال يا شيخ صوته وحرامه ومضى الجهة إن علماء أصاران إلى جمر ماو سيدا إلى مقطعنا سيدا وقرح بدن لو صار كلا وحوي كوا ديدن يكوا أقلي هي الشركة ده كوا مندوب كوا هاي ناس كوي مالانو سير صحة إرنتان أي وجهلان أنت وحكا صهراي سحماها أفلقاد ده يتوهمك يتوجوي يوي فكذان يوي عرران إله سبحانه وتعالى تسوى الودين هذه قضية سي أي بنتهاي أن طلبة علمي يقولنا بل يقول إنكوا ذا كباران أو قضية الصومالية كومان ما هني عرفت أنه جوه رئيس إن بدن أزهر فتوى كسوسارتي مجلس البحوث العلمية محوها مصر أيضا فتوى كسوسارتي اللي بدو إسخلافسين كونوا حيلين حلال وي كونوا حيلين حرام وي وأنا سكو وضن وي وأنا هذه يقص الرئي محوها الدينية مصر محوها يقول نفتي يقول علماء السعودي يقول وحي كل يهين محوها أقوال بدن وإسخلافسين غرب أقول غرب جدا بس أنا اجتهادي اسكو معايا بيو ربا عنا إيو حاران ديدا إيو مصح معها فقضية إن شاء الله تعالى نساسا لوغو إذن لوغو إنسان ربنا نيرهضو إله سبحانه وتعالى أن حق هنا وافجيو ربنا سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه حق أننا إذا مسلمين تأيت خير كجعل إنت ولا قد دوني سبا ربي سبحانه وتعالى ونتصو إنه وافجينا إن أنقاذنه وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته